inan qurux badan baad arkaysaa kadib markaad kulankii is araggii uu dhaco inantii quruxda ku taqaanay mahaba inantii marka ay suuqa joogto way niqaamantay markay jaamacadda joogto way niqaamantay markay maxad dhiganayso way niqaamantay mar wali way niqaamantay aroos haddii la yimaadana waa makeup baa la marsan yahay niqaamku waxaan soo jeedin lahaa dowladda somaliland aan u soo jeedin lahaa niqaamka in laga mamnuuco miyiga waxyaabahan ku arkay waxaa ka mid iyadana inan miyigii joogto waan waayba hablihii reer miyiga ahaa islaan weynoo joogta mooyaane inan joogtaa ma jirtaba waayo caqabadu waxa uu ku yahay in ay dadkiina isguursadaan ikhwaani fillaah horta aanu barnaamijkan aad iyo aad inta badan aan uga hadlay waa arrimaha qoyska muddo badanna barnaamijkan waan ku jiray waa arrimaha qoyska caqabadooyin fara badan horta way ku hereerisan yihiin barnaamijkan qoyska caqabadahaas in badan oona ka soo hadalnay caawana in yar baynu iftiiminana insha allahu tacaala laakiin waxaanu rabnaa inaynu ka istaagno caadifad ha ku eegin waxaad ku eegtaa qaybta saxda ah ku eeg caawa waxaynu rabnaa inaynu ka hadalno insha allahu tacaala niqaamku bulshadeenna soomaalida caqabad ma ku yahay mise kuma aha mariba marka la eegayo dumarka aan weli guursan dhaqankeennii soo jireenku waa la kala yaqaanay gabadha marwada ah iyo gabadha aan marwada ahayn hadda laakiin lama kala garan karo astaan iminka lagu garan karaa ma jirto gabadhan ma marwa mise marwa maaha inantii marwadiina way niqaaman tahay inantii dhallinyaradii ahayd ee aan weli guursanna way niqaaman tahay marka bulshada dhinac waliba xagga niqaamka marka laga eego dadkeennii hore dhaqankeennii hore gabadhu markay marwada ay gamba madow bay qaadan jirtay waxaa lagu garan jira waa marwo gambay sidataa baa la oran jiray gabadha kalena wax ka duwan gambada madow ayaa lagu garan jiray hadda laakiin caqabadaha dhalinyarta markay ay rabaan inay guursadaan gabadhii waxayba iyadoo kumaba kala garan karo gabadhan ma reer bay leedahay mise reer ma laha waxa kale inooga mid aan waxaan soo jeedin lahaa aan culimmadan oo soo jeedin lahaa masalada niqaamka ah majority-ga waddankeenuna habluhu uma wataan diin ahaan 80% qaar diin u wata way jiraan helidiina oo diin ahaan u wata laakiin 80% waxa loo wato anu waan garan waayay marka hablihii iyagoo waxaad arkaysaaba aan asturnayn laakiin niqaamku waxaan soo jeedin lahaa dowladda somaliland aan u soo jeedin lahaa niqaamka in laga mamnuuco waayo waxaan u arkay anigu weliba waxa laga mamnuucaya kuwa aan guursan aan niqaamka hala wada mamnuuca male gabadhu marwo hadday tahay ha xidhato laakiin gabadha aan marwo ahayn niqaamka inay xidhan baan kula talin lahaa waayo caqabadu waxa uu ku yahay in ay dadkiina isguursadaan inantii marka ay suuqa joogto way niqaamantay markay jaamacadda joogto way niqaamantay markay maxad dhiganayso way niqaamantay mar wali way niqaamantay aroos haddii la yimaadana waa makeup baa la marsan yahay haddii facebook aad ku aragtana ama sawir la soo galana filter baa saaran inantii midabkeygii saxda ah meel loogu iman karo oo marka aad guursatid kadib baad arkaysaa midabkeyga saxda midabkii saxda ee naturalka inuu kumaba arki kara ilaa markuu guursado mooyaan marka hablaheenni waxaan u baahanay si guurkii u fududaado oo is araggii u fududaado ragguna waxa weeyaan waxa aanu 80% gabadh aan ku qiimayna waa aragtida waan laga soo dhiiban karaa 20 ka soo haray waa akhlaaqiyaadkii waa diinigii aragtida koobaad qofku waa inuu aad ku qanci karto maxaa keenay aragtida koobaad lagu qanci waayo de gabadha waa niqaamanta marka waxaan oran lahaa culimada niyo niqaamka hablaha aan guursan si loo kala garto gabadha marwada iyo gabadha aan guursan dumarka niqaamka ha laga daayo waayo niqaamkana caqabad buu ku yahay in ay dhalinyaradii ay guursadaan dookhoogina ma heli karaan way haddii aad ku qanacdaan inaad qaadataan culimada inta badan waxaan u arkaa sida wax inaan wax xaaraantinimayn way fududahay laakiin in xal la helo nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam dhaqamo fara badan buu ugu yimiday wuu hirgeliyay dhaqamadii carabtu waxyaabo badan garhku dhaqan carbeed buu ahaa diin baa loo dhigay dabxiga gowraca wuu jiray waa la jiray islaami waa loo bedelay inagu maanta haddaba dhaqankeena Soomaaliyeed inanka carbeed ee gabadhii u niqaamay ee wejigeega qariyay de waxay heleen inaabtidii buu guursanaya inaadeertii buu guursanaya walaashiiba u raadinaysa waa community isku xidhan dhinaca qoyska inankii inaadeerkii meel kale ma tigi karo gabadhii baa u diyaarsan dhinaca markaad eegtana
dumarka carabta oo kale boqolkiiba 90 waxa la oran karaa midabkoodu waa isku mid waxay quruxdooda lagu kala gartaa inay gabadhu ilaadahay inay dhag laadahay inay xubnaha ay jismiga meel ay weeday baa ceeb loogu arkaa laakiin inagu bulshada Soomaaliyeed midabkoodu midab wax isku wada midab ma jiraan hooy inta wada dhalatay isku wada midab dad waxaynu kala midab duwan xitaa quruxdu meel isku muuqday ma karo midabkeena kala duwan sameyskeena rabbaaniga kala duwan indhaheeni baa kala duwan sankeeni baa kala duwan imadu kala duwan baynu nahay marka wax aynu ka qiyaas qaadan karno xitaa la oran karo ma aha inan aanad arag halagu tuso halo guursado way hadii maanta la yiraahdo ninkuu guurdo noqdo gabadh ha raadiyo muddo waxay ku qaadanaysaa inuu gabadhii cajibinayso u raadiyo kolba inan baan niqaam ka qaadaysa walaal iimaad cajibin inantii qalbiga kama dhaawici kartid maanta oo dhan kolba gabadha qalbiga dhaawacmaya inay kaas maanta aragteen bal inamada dhalinyarta u fiirso kulanka koobaad ee guur markaad guur doontahay ee gabadhu geer fadhiisato niqaamkaas caqabad ku yahay inan qurux badan baad arkaysaa kadib markaad kulankii is aragii uu dhaco inantii quruxda ku taqaanay ma haba hadhow waad ka noqonaysaa haddana tu kalaad ka noqonaysaa waxa laga yaabaa konton dumar qaarkood dhalinyarta inay arkeen ninkii guurdoonka u arkay oo inantii kontonaad ku qanacay way niqaamku wuxuu u bixiyaa sawir qurux badan way indhahan dadku ay ka wada qurux badan iyo sankaba laakiin marka la iska qaado midabka wax kala ku soo baxay marka waxaan oran lahaa umadu hayma ka horaba ha isku qanacday niqaamka culimadu waxaan soo jeedin lahaa iyo dowladda Soomaaliland ba in fiiro gaar ah loo yeesho in laguna kala garto gabadhii marwada ahayd iyo gabadhan marwada ahayn waa tala ahaan culimada fiqiga way ay kartaa